ballankii axdigii inuu isku ogeyn buu iiga baxay mana ka maarmi karo fursadeydana asaga ayay u baahan tahay. qisadani waa dhab waxaana inala wadaagay gabar magaceeda ku koobta Caaisho oo ku sugan magaalada Muqdisho kana mid asxaabta ku xiran channelka Aayaha Nolosha TV. waxay tiri wiil ayaan jeclaaday aad ayuuna qalbiga iiga jabshay. haddaba jacaylku ma lahan halbeeg qiyaaseed lagu cabiro mugga iyo miisaankiisa, laakiin waxa lagu tilmaamaa inuu yahay dareen dhab ah oo mideeya laba qofood oo isdoonaya. jacaylku waa istixgelin, istabis iyo isku tiirsanaan. jacaylku waa rabitaan oo ku beerma qofka oo u gala qof kale, waana siduu yiri abwaan hore, jacayl biri ma goyso biyana kaama mayraan. haddana jacaylku wuu wajiyo badan yahay, aad bayna u xanuun badan tahay marka lagugu cidleeyo oo aad ku kaliyowdo. gabadhani ayaa tiri waxaan jacayl xaddaaf ah u qaaday wiil dukaanle ah oo aynu daris ahayn. waan u bandhigtay wuuna ila qaaday bay tiri. muddo ku siman 3 sano ayaynu barbaarinaynay bay tiri jacaylkeenii curdunka ahaa. mar kastana waxaa igu sii siyaadayay bay tiri jacaylkiisa ilaa aan gaaray inaan codkiisa iyo araggiisaba ugu baado sidaan ugu baahanahay biyaha iyo raashinka oo kale. fallaaraha jacaylkiisa ayaa taabtay bay tiri qalbigayga, aadna u ruuxay ruuxdayda oo idil. waxay tiri markastuu shaqada ka soo baxo ayaynu taleefanka ka wada hadli jirnay, inagoo wada hadalna hurdaba ma ladi jirin. waxaynu webiyada galgacaylka wada mushaaxnaba. waxaa la gaaray bay tiri xilligii aynu guran lahayn oo bixii aynu abuurnay. waa tabintii shaacir. haddaba daawadayaal, si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha, ku xirnaaw oo subscribe saar beejkan cusub ee Aayaha Nolosha TV. inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka goyn xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya. waxaan ka codsaday bay tiri in aynu soo afjarno haasaawaheena oo aynu isguursano, wuuna iga aqbalay bay tiri. laakiin wuxuu ii sheegay bay tiri in howlo ka xayiran uu dhammaysan doono, kadibna aynu aqal geli doono. aad ayaana ugu farxay bay tiri. laakiin maalinkaa wixii ka dambeeyey wuxuu bilaabay bay tiri in uu ka gaabiyo xiriirkeena, taleefankana uu igu dhagaysto. haddaan is aragnana uu igu qanciyo inuu aad ugu mashquulsan yahay qabanqaabada arooskeena. laakiin waxaa xigtay bay tiri muddo kadib intaan wacay inuu igu wargeliyey inuu caruus yahay oo uu dhowaan guursaday, ayna tahay inaan iska ilaawo. taana waxay ugu noqotay bay tiri nabar aanan filayn. qalbi jab iyo mowraar dilaac ayaana ka qaaday. dabaaldegii iyo farxaddii aan filayay waxay isku bedeshay bay tiri murugo jacayl. jacaylkeenii wacnaa ma wuxuu ahaa been. waxaan galay bay tiri maalmo aad u xanuun badan. si kastoon sameeyana waan ka saari kari waayay bay tiri wiilkaas qalbigayga. waxaan ku noolahay bay tiri nolol ku dhisan humaag ah, xasuustii jacaylkayga. humaagaasoo ii ah bay tiri nolol dhab ah. markaan idhaahdo isaga har wiilkaas, qalbigayga wuxuu ileeyahay bay tiri murugada iyo ilinta indhahaaga ka qubanaysa waxay waraab u noqon doonaan. jacaylkaaga wuuna guulaysan doonaa ee soo dhacso. waxaan sila daalaadhacayaa bay tiri xanuunka nabarada jacaylka, iyadoo ka sheekeynaysa dhaawacyadii gaarayna waxay tiri waan idin salaamay Aayaha Nolosha. salaanka bacdigeed waxaan doonayaa qiso i qabsatay baan doonayaa inaan la wadaago. igu qabsatay magaalada Muqdisho. walaal inaan baan wada soconay muddo ah ilaa muddo 3 sano ah. waxaan jacaylkii isla wadno ballankii axdigii inuu isku ogeyn buu iiga baxay, waana ka maarmi la'ahay mana ka maarmi karo fursadeydana asaga ayay u baahan tahay. walaal waxaan doonayay kala iyo tusaale in aad isiisaan. haddaba asxaabta ku xiran channelka Aayaha Nolosha TV waxaynu fursad idin siinaynaa inaad la talisaan dhibanaha si jacayl adigoo fikradiina ku reebaya qaybta commentiga. waxayna ballan qaaday inay akhrin doonto talooyinkiina.